26 Juun ee sanadkii 1960 ay gobolada waqooyi ka qaateen xornimadii gumeystihii Ingiriiska halka 1 Luulyo ee isla sanadkaasi gobolada koonfureed ay ka xoroobeen gumeystihii Talyaaniga isla maalintaana waxaa midoobay goboladii waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya waxa ay ahayd maalin Jimco ah 1 Luulyo maalin farxadeed waxa ka soo wareegtay taariikhdaasi lama iloobaanka ah 62 sano ase yeeshee 1 Luulyo ayaa ah taariikh sanad walba mar la xuso balse maalinta Jimcaha oo ah maalinta nasashada islaamka oo ay taariikhdu dhalatay ayaanan soo laaban tiro ka badan 10 jeer laga soo bilaabo 1960 ilaa iyo sanadkan 2022 oo 62 sano ay ka soo wareegtay haddaba imisa maalin ayay ku soo beegmatay munaasabadda 1 Luulyo maalinta Jimcaha oo ah maalintii ugu horeysay ee la xuso sanad guuridii ugu horeysay oo Jimco ah waxay ahayd Jimco 1 Luulyo 1960 waxay ahayd maalin Jimco ah waxay ahayd maalin cid walba ay faraxday waxay ahayd maalin ku weyn qulubta ummadda Soomaaliyeed xilligaasi wixii ka dambeeyay iskuma soo beegmin maalin Jimco ah iyo munaasabadda 1 Luulyo ilaa iyo laga gaaro 1966 oo ay ku soo aaday maalin Jimco ah 6 sano kadib waxaana ay ahayd markii labaad oo la xuso 1 Luulyo maalin Jimco ah sanadkii ugu dambeeyay madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ayayna sagootin u ahayd madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo xukunka ku wareejiyay sidoo kale si nabdoon sanad guuridii saddexaad oo Jimco ay ku soo beegmato waxay ahayd sanad kale oo cajiib ah waxa uu ahaa sanadkii 1977 xilligaasi oo Soomaaliya guulo ay ka gaartay dagaalkii ay la gashay Itoobiya waxaana uu ahaa sanadkii ugu horeeyay oo maalinta Jimcaha iyo sanad guurida 1 Luulyo ay isku soo beegmaan markii uu kacaanka dalka la wareegay waxaana sidoo kale ay ahayd tii ugu horeysay oo Jimco la xuso tan iyo 1966 kolkaas oo ay ka soo wareegtay 11 sano sanad guuridii afraad oo 1 Luulyo ay ku soo aado maalin Jimco ah waxay ahayd 1983 6 sano kadib ay isku soo beegmeen mar kale waxaana sanadkaasi uu ahaa kii labaad oo ay isku soo beegmaan intii ay talinaysay dawladdii kacaanka 1988 ay ahayd sanad guuridii shanaad oo mar kale ay isku soo beegmaan 1 Luulyo iyo maalin Jimco ah waxay ahayd 5 sano kadib waxaana ay ahayd sanadkii ugu dambeeyay oo dawladdii kacaanka ay xusto maalin Jimco ah 1 Luulyo dawladdii kacaanka ayaa nasiib u heshay in 3 jeer ay xusaan 1 Luulyo iyo maalinta Jimcaha oo isku soo beegmay 20 sanad guuro oo ay dhigeen 1994 ay ahayd markii lixaad oo la xuso munaasabadda 1 Luulyo maalin Jimco ah 6 sano kadib ayay isku soo beegmeen sanadkii 1994 ayaa lagu xusuustaa in ciidamadii Mareykanka ee joogay Soomaaliya ay isaga baxeen waxaana uu ahaa sanad lagu xusuusan doono in Soomaaliya uu ka dagay culays badan 94 ilaa iyo sanadkii 2005 muddo 11 sano ah iskuma soo beegmin 1 Luulyo iyo maalinta Jimcaha intii u dhaxaysay 1994 ilaa iyo sanadkii 2005 markii toddobaad ayna ahayd oo isku soo beegmaan maalinta iyo munaasabadda 1 Luulyo waxaa madaxweyne xilligaasi dalka ka ahaa Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed 7 sano oo aysan isku soo aadin waqti dheer kadib waxay mar kale isku soo beegmeen sanadkii 2011 waxaana ay ahayd munaasabadii sideedaad oo ku soo aada maalin Jimco ah dalka waxaa madaxweyne ka ahaa Shariif Sheekh Axmed oo nasiibkiisu uu siiyay in ay isku soo beegmaan maalinta iyo munaasabadda 1 Luulyo sanadkii 2011 ayaa lagu xusuustaa dawladdii uu hogaaminayay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed in dagaal ay la galeen kooxda ururka argagixisada ee Al-Shabaab taasi oo dalka inta badan ay ka sifeeyeen munaasabadii sagaalaad ee dhacda maalin Jimco ah waxay ahayd sanadkii 2016 xilligaasi oo dalka ay ka jirtay dawladdii ugu horeysay ee si xor ah loogu doorto dalka gudihiisa waxaa hogaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda dalka maamula waxay ahayd markii ugu horeysay ay isku soo beegmaan munaasabadda iyo maalinta Jimcaha ee 1 Luulyo 5 sano kadib ugu dambeyn markii tobanaad waxaa nasiibku uu siiyay madaxweynihii tobanaad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sanadkan 2022 waxay isku soo beegmeen 6 sano kadib
xasan sheekh maxamuud waxaa sidaasi uu ku yahay madaxweynihii ugu horreeyey ee si xur ah loo doorto oo sidoo kale 2 jeer nasiibkiisa uu siiyey inay isku soo beegmaan maalinta Jimcaha iyo munaasabadda 1 Luulyo. sidoo kale waa madaxweynihii ugu horreeyey ee dib loo doorta 2 jeer. waa rikoor cusub oo kale waxaana uu nasiibkiisu siiyey mar kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud. maalmihii ugu badnaa ee la xuso 22 sano ee la soo dhaafay munaasabadda 1 Luulyo ayaa waxay ahayd maalinta Salaasada taasi oo la xusay 17 jeer. waxaa ku xiga maalmaha Axadda iyo Isniinta oo la xusay 9 jeer, halka min 8 jeer la xusay maalmaha Sabtida iyo Arbacada. maalinta Khamiista oo inta badan aysan isku soo beegmin munaasabadda 1 Luulyo ayaa la xusay mar qura waxaana uu ahaa sanadkii 1965 xilligaasi oo ay ka soo wareegtay maalinta xornimada 5 sano kadib. maalintii Jimcaha oo ahayd maalintii ugu horreysay ee la xuso ayaa ku beegmatay 10 munaasabadood oo kaliya 1 Luulyo. sanadka xiga oo ay isku soo beegmi doonaan munaasabadda 1 Luulyo iyo maalinta Jimcaha waxa uu noqon doonaa sanadka 2033 10 sano kadib.